وبركاته كلونتي وعن داود يال ملك كستا الدنيا كجوجتان كسو دوادا برنامجكنا كلسن iyo Kampala haatan waxaa marti inoogu ah aqoon-yahan Shaafi Aadan Waris Cusmaan mudane ku soo dhawo Kalsan iyo Kampala وأنا كلسن بعد كلسن وما زلت. tahay siyaasi u dhigdeela arrimaha Soomaaliya ka waran xaaladda kala guurka ee ku jiro dalka وسؤال في عن مدن سؤال شخص سؤال أديان ونكسن أرنت كلا جورك مرك لجها الله يو وضن حالات تجعل صوتية كصوب حي أو مارت حالات ترانسيشن كتيرة runtii waxaa jira waxyaalo la maro formula la maro oo adduunka caalami ah wadan markuu ka dhaco dagaal sokeeye dabcan hub baa jira dadku haystaan waxaa jiray qabaa'ilo dagaalamayay waxaa jiray kooxo dagaalamayay waxaa la sameeyaa wax la yiraahdo disarmament oo waxaa la sameeyaa qaacido caam ah adduunka isticmaalo 3D 4R oo ah kolka hore in la sameeyo hubka dhigis disarmament وهذا أنا لسميه محل هذا distraction وهوكي لصو وريي مركب كريسة لسميه لبقوليه كدنا demobilizing لسميه ومارك إداركي دجالنا يودان يردي لسميه حفظوا هاي مارك شغوين كوا أبوان وهاي كل قصة مرشي عادية هاي مارك هاي كل قصة ما دام الحالات عن دجال يكترين وحرك عبا وحيالك هلا مارك 4R 3D 4R بريد هذا إن reintegration maaragtay dib u falgelid dadka dib ay sida loo falgelin lahaayeen laga shaqeeyo oo maaragtay sida hore uu markii laga sheegay in ay shaqo abuur loo sameeyo xirfadaha ay ku shaqeystaan la baro waxaa jira mar ku dagaal sokeeyo wadan ka dhaco sida inagoo kale Soomaaliya dad fara badan oo mental health uu ku dhaco oo tusaale ahaan u baahan trauma counseling wax la yiraahdo in la siiyo waxyaalo maaragtay xag psychologically laga caawiyo waxaan yahay wax ku dhacay oo caadi ah oo wali uu rajo nolol fiican u heli karo in la sameeyo maaragtay rehabilitation loo sameeyo dadka dabcan waxaa jiraya dad qaxay oo wadanka dibadiisa u qaxay oo refugees ah oo sida hadda maaragtay Kampala maaragtay dad badan qaxootiga Soomaaliya u nool yihiin Kenya ugu nool yihiin adduunka oo dhan kala qaxeen waxaa jira oo kale kuwa wadanka gudihiisa ku qaxay oo IDPs ah oo hadda mesela xamsaalo soo qadan karaa ceelasha biyaha oo kale mesela oo hadda magaalo weyn baa noqotay waa dadkii ku dhex qaxay maaragtay wadanka marka dadkaasna waxay u baahan yihiin in loo sameeyo resettlement oo dabcan markuu dagaal sokeeyo wadanka dhaco inta badan dadka qaxay way adag tahay boqolkiiba boqol ay soo wada noqdaan laakiin dadka soo noqonaya dawladdu inay samayso dib-u-dejin inay samayso iyo maaragtay guriyeyn iyo waxyaalahaas loo sameeyo aduu process noocaas oo dheer baa runtii jira ka hirgeli karaa arrimahaas ama dawladda Soomaaliya maxay ka qabatay arrimaha kala guurka ah awlahaas waxaan isleeyahay caqabado badan baa jira oo wali kooxo dagaalamaya oo mesela hadda kooxdan argagixisada al-shabaab oo kale wali wadankii maaragtay dagaal bay wadaan qaraxyay sameynayaan meelo badan oo hadda dhulkii adag ay maamulayaan marka waxyaalahani intooda badan reconciliation baa ka mid ah maaragtay in bulshada loo sameeyo marka waxyaalahaas oo dhani way adag tahay in si dhab ah ay u hirgalaan laakiin waxaan isleeyahay bilow fiican baan maraynaa oo dawladdan hadda madaxweyne farmaajo hogaaminayo waxyaalo fara badan ayay qabatay laakiin waxaan isleeyahay wax badan baa weli dhiman caqabado fara badan oo kolley arrimaha hortaagan way jiraan muqala tahay in dalka ay ka dhici karto doorasho hal qof iyo cod ah waa su'aal muhiim ah runtii caqabadaha hadda wadanka ka jira kolka waxay isweydiin mudan doorasho noocee ayaa wadanka ka dhici karta doorasho dadban sidii doorashooyinkii aynu horey usoo aragnay dawladdan hadda joogtaba ay ku timid oo ergooyin number kooban ay maaragtay soo doorteen ma number intaa ka ballaaran oo maxaan idhahdaa ergooyinka la badiyey iyo meelaha laga qabanayo oo masalan maamul goboleedyada kale ay xarumo ay doorashadu ka dhacdo laga sameeyo arrimahaas oo dhan doorasho in la qabto runtii arrin sahlan ma aha dhaqaale aad badan bay dhaqaale u baahan tahay waxay u baahan tahay maaragtay in isfahan ay ka qaataan maamul goboleedyada iyo dawladdu nooca doorashadu ay noqonayso iyo waqtiga laftigiisa
arrimahaas marka waxaan isleeyahay waa arrimo weli caqabado badan hortaagan yihiin oo dhinaca amniga oo kale waddanku hadda satal maaha oo boqolkiiba boqol doorasho hal qof iyo hal cod ah ismalihi way hirgeli kartaa xilligan caqabadaha badan baa marka hor yaalla waxayna kolay dowladdu iyo guddida madaxa bannaan ee doorashooyinku si ay soo jeediyeen in muddo kordhin la sameeyo ayay codsadeen laakiin kolleyba anigu uma arko shaafi ahaan in xilligii hore muddadii hore loo muddeeyey doorashada ee ahayd February 2021 inay doorasho dhici karto ma filayo xitaa muddadan ay codsadeen 9 bilood ee la yidhi ha lagu sii daro aan ognahay maamul goboleedyadu inay ka biyadiideen iyo xisbiyada mucaaradkiiba waxaan isleeyahay muddada laftirkeeda inay adag tahay in doorasho qof iyo cod ah ay Soomaaliya ka hirgasho aad bay adag sidee ayay kula tahay waa lagu qaban karaa doorashada dalka kolka hore dowladdu inay samayso diyaar garow dhaqaalihii lagu qaban lahaa doorashada maamul goboleedyada oo aan isleeyahay dowladda iyo maaragtay maamul goboleedyadu waxaa jira khilaaf ama dhinaca isfahanka arrimaha doorashooyinka iyo arrimo kaleba oo la xiriira aad ogtahay caqabado fara badan oo waxaa jira dowladdeena hor yaallo constitutional crisis yani aad moodo awoodihii dowlad goboleedyada iyo awooddii dowladda dhexe inay maaragtay marar badan saynu aragno si dowladdan tan kaliya ma dowladdii xitaa ka horreeyey aynu arki jiray marar fara badan isfahan la-aan ka jirta maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe marka waxaan qabaa in maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo dhammaan xisbiyada mucaaradka inay lahaadaan qorshe cad oo ku wajahan arrimaha doorashada si dhaba loo qiimeeyo xilliga suurtagalka ah ee doorasho hal qof iyo cod ay ka hirgeli karto Soomaaliya marka waxaan qabaa inay diyaar garow badan la sameeyo hadday noqoto dhinaca technicality-ga iyo hadday noqoto dhinaca dhaqaalaha iyo hadday noqoto dhinaca isfahanka maamulka guudba maaragtay iyo caqabadaha kale faraha badan ee aan garanayno hor yaalleen amnigu ka mid yahay laftigiisu waxyaalahaas in maaragtay diyaar garow badan laga sameeyo waxaan aaminsanahay markaas in si dhab ah marka SWOT analysis la sameeyo oo la ogaado caqabadaha meesha yaalla iyo suurtagalnimada xilliga la qaban karayo markaas in la shaacin karo marka xilliga doorashada waliba arrimahaas waxaan ku darayaa xanuunkan safmarka corona oo isaga laftigiisu caqabad kala noqday oo dhaqaale burbur keenay ismaatankii aad ogtahay in laftigeeda ay adag tahay intuu sii socon doono laftigeeda aan la garanaynin oo complication runtii fara badan keenay isaga laftirkiisu wuxuu u baahan yahay maaragtay in tixgelin gooni la siiyo qiimeyn dhab ah marka arrimahaas oo dhan markay la isla fahmo ayaan qabaa inay suurtagal tahay in la shaacin karo doorasho in waddanka ka hirgeli karto qof iyo cod ah maxaad is leedahay dowladda hadda jirto way ku guuleysatay ama waa ay ku guuldareysatay su'aal muhiim ah runtii dowladdu waxyaalo fara badan ayay wax ka qabatay oo waxyaalo fara badan oo wax ka qabanina way jiraan sababo la xiriira kulli caqabadaha faraha badan ee jira waxyaalahan is leeyahay anigu way ku guuleysatay dowladdu waxa weeye dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda oo aad moodo inay soo celiyeen haybadii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed oo aan arkayno maaragtay in adduunku sidoo hadda inoo tixgelinayo inay maaragtay waxyaalo fara badan ay ka qabteen oo dhinaca xidhiidhada caalamiga iyo maaragtay ay wax badan ay ka hagaajiyeen iyo maaragtay xidhiidhadan la leenahay dowladaha kale saad la socoto xilliyadii hore waxaa jiri jiray inkastoo Itoobiya uu isbedel ka dhacay haddana maamul goboleedyada Soomaaliya waxay mar walba tagi jireen Addis Ababa oo maaragtay ay maaragtay waxyaalo fara badan ay sameyn jireen marka arrimahaas oo kale wax badan baa laga qabtay isfahan runtii aad iyo aad u wanaagsan bayna dowladdu ay ka sameysay halkaas waxyaalaha kale iyaduna ay wax ka qabatay waxaan is leeyahay dhinaca horumarka waxyaalo fara badan ay ka qabatay sida hadda ayaamahan waxaan arkaynay meelo fara badan oo dib loo furay xarumihii dowladda iyo xarumihii dadku isugu imaanayeen sida hoyga madaalada oo kale iyo stadium Muqdisho isagana maaragtay la dayactiray oo maaragtay dhinaca horumarka laftigeeda waxay ka qabatay arrimaha aadka loogu ammaano oo cid walba ay qirto oo dowladda lagu ammaano waxaa ka mid ah la dagaalanka musuqmaasuqa oo wasiir Bayle runtii uu ku sharfan yahay sida wanaagsan ee hufan oo maamulay dhaqaalaha dalka
arrimahaas waa arrimaha lagu ammaani karo oo la dhihi karo dowladdu waxbay ka qabatay arrimahaas leeyahay dowladdu xogaa way ka gaabisay ama waxa mayna ka qabanin waxa weeye la macaamilka maamul goboleedada waa tan ma dhaweyd lahaa waxaad moodaa inuu iska jiro nidaamkan federalismka oo kolkiis hore laga soo minguuriyey Ethiopia oo intik federalism inagu intik ma kala nihiin intik waxa la oran karaa dad kala af ah oo maaragtay kala dhaqan ah Soomaalidu maaha dad intik kala duwan ma waa one intik weeyaan waa waxa weeye waa hal jinsi weeye Soomaalidu marka federalism kan laga soo minguuriyey Ethiopia oo inaga lagu dhisay nooc qabiil ah oo aad moodo maamul goboleedadu inay yihiin reero oo kale mesela iyadoo kolkeedii horeba Soomaalida ay caqabad ku ahayd qabyaaladda oo waxyaalaha ugu fara badan ee inta badan in ragaadiyay ay ka mid tahay moos in la sii naaxiyay arrintaas oo qabyaaladda maaragtay maamulo ku dhisan qabaa'il la sameeyay marka arrimahaas xagga awoodda laftirkeeda loolanka xagga awoodda ah oo dowladda dhexe iyo maamul goboleedada ah iyadoo caqabadaas jirto haddana waxaan is leeyahay dowladda federaalku ma isticmaalin wadadii saxda ahayd lagu maamuli lahaa maamul goboleedada waxaad moodaa inuu marba mar ka dambaysa uu sii xumaanayo hadda waxaan maleeyaa berri 9 bisha Dhuusamareeb waxaa ka dhici doona shirkii maamul goboleedada dowladduna arrinta shirkaas taali kama ah saan ogahay marka arrimahaas marka waxay ku tusayaan inuu jiro isfahan waa xagga maamul goboleedada iyo dowladda marka arrimahaas waxaan ku dhaliilayaa dowladdu inay gaabis badan ka samaysay dhinaca amniga inkastoo caqabado badan ay jiraan waxaan is leeyahay iyada laftirkeeda si la rabay waxuma hirgelin arrimahaas aan is leeyahay xagga dowladdu maaragtay way dhaliilo way ka jiraan inta aan sheegayna dhinaca wanaaga way sameeyeen marka taas ka jawaabi lahaa masan xiriirka caalamiga ah ee wadamada dibadda ee dowladda hadda jirto ma la isdhihi karaa way ku guuleysatay arrimaha dibadda ha dowladdu wax badan bay ka hagaajisay marka laga reebo hadda dowladda Kenya oo jaarka nahay oo ay jirto maaragtay arrinta xagga badda oo kale oo aynu isku haysano oo ay maaragtay arrimahaas ay jiraan waxay keenayaan iska yar liito marka laga reebo waxaan qabaa in wax badan xiriirka caalamiga ay dowladdu wax ka qabatay oo aad arkayso maaragtay in karaamadii iyo haybadii Soomaaliyeed xogaa ay soo noqotay adduunku nagu qadarinayo marka inaan maaragtay Soomaalidu iyadoo ay tashato oo ay go'aankeeda lahaato maanta waxba laynoo yeedhin marka waxaan is leeyahay dhinaca arrimaha dibadda wax badan bay ka qabatay dowladdu maadaama aad tahay aqoon-yahan ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia ka waran dagaaladan hadda ka soo cusboonaaday ama rabshadahan ka soo cusboonaaday Ethiopia waa run rabshadaha ka soo cusboonaaday in Ethiopia waxay salka ku haysaa rabshadahan hadda bilaabmay nin fanaan ah oo qowmiyadda Oromada ka soo jeeda oo caan ah oo lagu magacaabo Hachalu Hundessa ayaa maaragtay la dilay kulli assassination baa lagu sameeyay taageerayaasha fanaanka caanka ah ayaa waxay sameeyeen mudaharaado noocyo rabshada ku bilowday taasa maaragtay ay salka ku haysaa kacdamadan iyo mudaharaadadan maalmahan aad arkayseen runtiina falcelinta dowladda laftirkeedu waxay noqotay mid adag oo runtii aan laga filaynin wasaaraha hadda oo Abiy Ahmed oo nin xilligan kala guurka hadda isagu meesha maamulayay bilowgiina waji fiican ummadda Ethiopia iyo geeska Afrika runtii tusay oo aad ogtihiin in jaayizada Nobel Peace Prize uu qaatay lagama filaynin maaragtay in awood maaragtay dad shacab ah oo caadi isaga mudaharaadaya awood dheer inuu isticmaalay oo dad fara badan oo shacab ah la laayay waxyaalaha arrinta shidaalka ku sii shubay oo xaaladda sii xumeeyay waxay ahayd markii la xidhay siyaasiyiin qowmiyadda Oromada ka soo jeeda oo caan ah oo uu ka mid yahay Jawhar Maxamed oo runtii ahaa dadkii isbedelka door weyn ku lahaa runtii oo la oran karayo dadkii ugu cadcadaa isbedelkii Ethiopia ka dhacay ayuu ahaa iyo siyaasiyiin kale oo maaragtay iyaguna mucaarada
oo ay xitaa ka mid yihiin ururkii gobonimodoonka ee OLF Oromo Liberation Front gudoomiyaheedii oo isaga laftiisu xabsi guri la yidhi weeyaan Daawud Ibsa iyo maaragtay siyaasiyiin kaleba marka arrintaas laftigeedu way sii xumaysay laakiin hadda last 2 days waxaan maleynayaa xogaa xaaladdu way yar degtay waxaan arkay ergooyin dowlad deegaanka Soomaalida oo hogaaminayay madaxweynaha deegaanka mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo odayaasha dhaqanka oo tagay gobolka Oromia ka tacsiyay waxyaalaha dhacay iyo maaragtay rabshadihii meesha ka dhacay aadna moodaysa inay qaateen door dhexdhexaadnimo oo maaragtay inay isku soo dhaweeyaan dowladda iyo maaragtay shacabkan gadoodsan rabshooyinka marka arrimahaas saasay ahayd okay xukuumadda hadda talada haysa oo hogaamiyaha u yahay madaxweyne Mustafa Cagjar ka waran sida ay wax u wado runtii muddo hadda 2 sano aday iyo xukunka joogtaa dowladdan intii isbedel ku dhacay systemkii macangaga ahaa ee TPLF oo wadanka hayay oo ogtihiin maaragtay in tacadiyo fara badan ay dalka ka dhaceen xasuuq qadaraadiyo fara badan ka dhaceen xarig baahsan waxyaalo badan dhaceen runtii muddada 2 sano ay joogeen wax badan oo aad wanaagsan bay qabteen waxyaalaha hadda iyagoo aad loo aan ugu amaano aan ku amaani karno waxa weeye deegaanka Soomaalidu inuu yahay deegaanka ugu nabdoon Ethiopia guud ahaan Ethiopia yani xilligan transitionka hadda intan 2 sano u dambeysay waxyaalaha dawladda aad loogu amaani karo weeye waxyaalaha xagga wax badan ka qabteen xagga maaragtay isku dhacyadii qabiilada oo iyaga laftigoodu waad ogtahay markuu xaalad transition laga baxo oo dad dagaal ku soo jiray oo aad u culuubay oo ciidankii liyu booliska iyo ciidankii jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya oo dagaalamayay maxaan idhaahdaa dhib badan meeshay dhacay dad fara badan ay dad kale maaragtay dad hantidoodii qaateen waxyaalo fara badan oo runtii caqabad weyn ahaa oo keenayay in maaragtay colaado waaweyn ay dhacaan oo sokeeye sababi karayay oo in la kala aarguto oo wixii waxaad moodaa inay aad u maamuleen oo ayna waxyaalahaas dhicin way jireen meelo ay qabaa'il isku dagaaleen laakiin iyadana waa la xaliyay marka arrimahaasna iyagana waa lagu ammaani karaa anu kulley afhayeen uma dawladda oo ma garanayo waxyaalo fara badan oo ay qabteen oo dhinaca horumarka ana way jiraan runtii oo muuqda iyagana maaragtay la arkay waa hagaag fariintaada ugu dambeysa ee ku aadan bulshada Soomaaliyeed waa maxay waa su'aal fiican runtii ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqi lahaa inay ka shaqeeyaan midnimadooda inay taageeraan dowladnimo ay ku noqon karaa iyo midnimo waxaan qabaa inay ummadda Soomaaliyeed isku tashato inay iska dayso caadifada iyo maaragtay qabaliyada laynagu naaxiyay oo inta badan waxyaalaha in ragaadiyay runtii kamid ah ummadda Soomaaliyeed laga shaqeeyo si guudna riyadii awooyaasheen ee ahayd shan Soomaaliyeed waa inay jiilka hadda joogay ay maaragtay ka fakaraan waxay muuqdaa aniga ididiilo fiican oo hadda wada hadalladii Djibouti oo kale runtii waxay abuureen xogaa kalsooni yani dadku ay maaragtay kalsooni ay abuurtay ama saaxiibadayda maaragtay reer waqooyi marka la shaqeysanayo in xogaa ay abuurmayso kalsooni ummadda Soomaaliyeed ay dib ugu wada hadasho oo ay dib wax isweydiiso adduunka hadda wuxuu marayaa xilli loo midoobayo maaragtay regional integrations maaragtay hadda sida hadda waddankan hadda inagu joogno oo kale Uganda wuxuu ka mid yahay East Africa Bloc oo Tanzania iyo Kenya iyo Rwanda iyo ay ku midaysan yani dadku waxay u midoobayaan bahalkii waxaa laga fikirayaa in hal lacag la wada samaysto iyo hal baarlamaan marka ummadda Soomaaliyeed oo jifa ah oo qoyska kuukuyada aan la ekayn maaragtay inay waxay ahayd inaan ka fakarno riyadii awooyaasheena ahayd shanta Soomaaliyeed oo maar sidii loo midayn lahaa oo haddayna hadda xitaa dawlad ahaan ku midoobi karaynin inaynu dhaqaale ahaan ku midoobno economic integration la sameeyo oo dhinaca dhaqaalaha iyo iskaashi noocaasi uu samaysmo waxaan odhan lahaa aynu ka fakarno sidii aynu u reebi lahayn taariikh cusub oo maalin walba waxaynu xusnaa sanad guuradii SYL oo ah wiilal dhalinyaro ahaayo isku day fiican sameeyay isku dagoodina guuleystay marka jiilka cusub ee Soomaaliyeed waxaan qabaa inay iyaguna
ay bedelaan taariikhdii midoobeyd ee dagaalka sokeeye 30 sano soo dhaafay inuu ku jiray oo aynu taariikh cusub qorno oo ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda laga shaqeeyo xasan Allah maasanta waa hagaag daawadayaal halkaas waxaan noogu soo idlaaday barnaamijkeena Kalsan iyo Kambala waxaa martii noogu ahaa aqoon-yahan Shaafi Aadan Waris Cusmaan sidoo kale waxaan la socodsiinayay anigoo ah Cabdiwahaab Ibrahim Cabdiwaahid ka kaamirada waxaan noo hayay Samiir Maxamed Beeso sidoo kale waxa isku dubrida ka ahaa Maxamed Nuur Aadan intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh